بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داوديال waxaa maanta nasiib u helay inaanu magaalada Laascaanood kula kulanno aqoonyahanka weyn isla mar ahaantaasina qoraaga ah waa Maxamed Siciid Kaashawito maxamed ku soo dhawow barka hore magaalada Laascaanood kuna soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee VOS TV aad baan u dhawahay aad baan idinku mahadcelinayaa VOS aad baan ula socdaa aad telefishinkan waxyaabo badan wuxuu ka soo gudbiyaa wararka ama dagaalada ka socda magaalada Laascaanood marka in badan oo bulshadana waa ku xiran tahay aad baan idinku bogaadinaynaa waana dhawahay ma sha Allah waxaad soo gaadhay Laascaanood oo ay dagaalo iyo colaado ku socdeen dad badan baa isweydiinaya Laascaanood maanta waxaa taga nin qorisita oo dagaalamaya jihadu danaha ka socdo ama galbeed ha ka socdo ama bari ha ka socdeen waxay dad badan isweydiinayaan maanta Maxamed Siciid Kaashawito Laascaanood muxuu soo doonay runtii lama oran karo muxuu ka soo doonay horta waa magaalo Soomaaliyeed waana ku faraxsanahay inaan soo booqdo oo imaado xaaladda ka jirta oo aan la wada soconay dhowr bilood oo ugu dambeysay in magaalada Laascaanood ay dagaalo ka jireen duqeymo ka jireen dad badan ka barakaceen marka bal waxaan isniri bal horta waxa la sheegay horta inaan soo aragno waxa inta ay dheereyd waxaan wadnay buugan oo aan ka qoraynay dagaaladii iyo taariikhda gobolada SSC oo aan rajaynayno isaguna inuu dhawaan soo bixi doono hadda waa laba qaybood laakiin waa hal buug isku noqonaya insha Allah marka xogo badan oo iga maqnaa oo aan soo danayay in halkan igaga xirnaa ayaan waxaan ugu imi si aan xogaha u dhameystiro insha Allah boqolkiiba boqol waxaan maleynayaa in xogihii hadda aan dhameystirnay waliba gacan weyn baa iga siiseen qoladiina Fayso aad baa ila shaqeysay waan idinka mahadcelinayaa qoraag waxa la yiraahdaa waa hanti qaran waxa la yiraahdaa waa kayd umadeed wuxuu ururiyaa dhacdooyin taariikhi ah iyo dhigaalo aysan dadka intooda badan aysan heli karin markaad timid Laascaanood sawirkii aad ka haysatay adigu waxa weeye media markaad kala socotay magaaladii dagaal baa ka socda waa la qaxay wax rafaad badan baa taagnaa sawirkii aad markii hore ka haysatay iyo sawirka aad hadda kala kulantay bal isbarbardhig wallahi Laascaanood horta markii ugu horeysay aan imaado maaha 17kii baan mar imi laakiin magaalada marka hadda aan imi magaalo weyn oo ma sha Allah ganacsi badan meherado badan aan ku arkay iyo dhismayaal casri ah laakiin waxa barbartaala magaalada waxa ii muuqatay inay ooyeyso oo magaalo ooyeysa ay tahay oo dadkii ka maqan yahay oo waxa dhex maraya waa technico iyo ciidan aad u fara badan marka saansaan colaadeed iyo goob colaadeed in ay tahay baa noo muuqatay waxa maqan oo aan dareemaynaa systemkii arrimaha bulshada oo ay ka mid tahay dawladda hoose roobaad ay waxyaabaha aan la yaabnay waxay tahay jidad laami oo magaalada laga dhisay oo hal sano aan jirin baan maleynayaa ugu badnaan hal sano jiray oo burburay gabi ahaantoodiiba marka la barbar dhigo jidkii Shiineysku uu 50 sano ka hor uu dhisay oo wali sidiisa u dhisan wax yar oo ka burburanay dawladda hoose la ii sheegay inay dhameystirtay marka dad way jiraan wali ganacsigii wada oo meherado yar yar waa furan yihiin ama meheradihii muhiimka ah sida isbeer baartiyadii oo kaleeto goobaha farmashiyaasha waxba furan qaybo kamid ah magaalada waa gabi ahaan waa xiran yihiin station shidaalku wax yar baa furan hal iyo laba ama saddex baan oran karnaa marka magaalo sina magaalo u ah laakiin khaawi ah oo runtii dadkii ku noolaa ama mujtamacu ku noolaa aysan maanta ku noolayn oo ka maqan yihiin waa ayaan darro waaye marka intaas baan hadda Laascaanood image-ka guud ama sawirka guud aan ka bixin karo waxaan aad ugu faraxsanahay in hogaamiyaashii dhaqanka beelaha SSC ninna iyagoo uusan ka maqnayn inay joogaan magaalada oo ay talinayaan oo ay maaragtay wixii magaalada sidii loo maareyn lahaa sidii dadkan ku soo duulay looga kicin lahaa waxyaabo badan oo hawlahaas inay maaragtay gacanta ku hayaan marka aad baan iyagana ugu bogaadinayaa guddi baa iyaguna jira 33 ay garaadada badankood waa is wada aragnay laakiin guddiga wali ma aanan arag waqtiguna ciriir buu yahay iyagana waa rajaynaya inaan arko marka aad baan maaragtay magaalada
iyo wacyigeeda iyo dadka beeridu waa jiraan oo kuma aanan gaajoon labada cisho aan joognay meheradii cuntada waa furan yihiin dadku way imaanayaan oo waxay u imaanayaan guryahooda bay arkayaan oo markay yimaadaan way noqonayaan misana qaar baa noqonaya ama alaab ka qaadanaya ama u imaanaya gurigii bal in ama la bililaqaystay ama madfac ku dhacay iyo waxa inkaasoo kaleeta marka xaafaddu magaaladu waa dhowr daamood baan u malaynayaa dhinaca bariga ugu khasaaro badan markaan soo indhaynay dhinaca bariga ayaa ugu khasaaro badan laakiin dhinaca koonfur galbeed iyo santarka magaalada iyo inkastoo ay guryaha qaarkood wax gaargaareen laakiin way nabad qabaan inta badan way nabad qabaan laakiin inta ugu badan oo hadda khasaaraha ugu badan gaaray goobihii dagaalku uu ka dhacay waa dhinaca bariga welina way jirtaa colaadii dhinaca bariga aad bay u taagan tahay saas baad maqlaysid dabcan waxaad soo qaaday laamiyo iyo dariiqyo inta badanna markaad degeysatid ee saxaafadda Hargeysa ama Somaliland baan idhaahdee mas-uuliyiinta maamulkaasi waxay ku faanaan dariiqyo horumar dabaqyo yacni nolol ay intii ay haysteen ka sameeyeen markaad maanta aragtay dariiqyada ama laamiyada ay sheegeen inay dhiseen inkastoo ay jirto inay dhistay ama ay lacagta bixisay hay'ad la yiraahdo UN Habitat misana Somaliland iyada sheegata hadda isbarbardhig hadallada ka soo yeedhaya Hargeysa ee horumarka iyo wanaag ay sheegayaan iyo waxaad idhaahda ku aragtay والله runtii dee horta maamul waa iska oranaya anaga wax qabanay iyo anaga marna ma dhacdo maamul walba oo Soomaaliya ka jira waxa wax qabad fiican ugu dambeeyay dawladda kacaanka ay runtii markaynu ka hadalno markii jidkay dhistay 50 sano ka hor baa wali yaala laascaanad gudaheeda ilaa iyo berbera u malaynaya ilaa beledweyne walina gawaaridu waa ku socdaan waliba aad baan ugu soo safarnay meesha la yiraahdo Garowe ilaa iyo Buuro Wadal nasiib darro waxa Buuro Wadal baa laga leexanayaa waddo raf 25 kiiloomitir Buuro Wadal waxa u jeedaa gambare ha gambaraan ka leexanay marka waxa ay andaraade 5 iyo 20 daqiiqo meel aan u soo socon lahayn baan waxaan soo soconaynay 3 saacadood sabab wadada xumayd oo rafayd oo buuro ahayd oo tugog ahayd oo dhiidhi baa jiray oo maxaan ku yiraahdaa wadda aad u adag bay ahayd runtii intii aanu Garowe ka soo soconnay in la eg baanu haddana u soo soconnay lascaanood u soo soconnay marka Soomaaliya oo dhan hatta marka Hargeysa eegtid waxa development sameeyay waa shacabka marka boosaas eegtid marka xamar eegtid developmentiga wadanka waxa sameeyay shacabka sameeyay meel walba oo Soomaaliya ka midana waxa ka muuqata in systemyada dawliga ama waxa ahaado dawladda hoose ama ha ahaado dawlad dhexe in kaabayaashii dhaqaalaha ee ay samayn lahaayeen oo ay barbar ordisiin lahaayeen ganacsatada iyo mujtamaca wadaniyiinta ay waxyaabaha horumarka ay wadanka ku soo kordhinayaan laamiyadii marka la rabay in la goglo jardiinooyinkii la rabay in la sameeyo wixii loo baahnaa ama ha noqoto caafimaad ama waxbarasho ama wax kale ha noqoto waxa laga rabay dawladda dhexe marka anigu waan arkay laamiyada dhowr laami oo la yiri waxa dhisay hay-adan barnaamijkan la yiraahdo GPLG-ga UNDP ay hormuudka u tahay iyo dhowr hay-adood oo isu tegay laamiyadaas waa burbureen gabi ahaantoodba dadka haddaan weydiiyana waxay dhaheen sanad iyo xoogaa iyo sanad iyo 2 sano iyo meelahaas kuwa 3 sano jira laakiin gabi ahaanba maanta waa burbureen lama oran karo xataa meelaha qaarkood halkaana laamin la saaray lama oran karo taa bedelkeedana waxa muuqata in la duqeeyay isbitaalkii in la duqeeyay masaajidkii in la duqeeyay goobihii waxbarashada in madaafiici ku dhacday meelihii publica ahaa ee marka laga tago guryaha shacabka ay ku nool yihiin meelihii publicada ahaa oo dadka loogu shaqeynayay baa dhaawacyo soo gaareen laakiin Soomaaliland waxay ku doodaa inaysan iyadu burburin yaa burburiyay taa calaamad su'aal waaye marka qolada dhul baahantaa burburisay marka iyaga iska burburiyay marka dhinaca badfac laga soo riday anigu geographically awal magaalada si fiican ulama aan socon systemka dagaaladu u dhacay laakiin markaan geographically arkay hadda kaara soo saaran meel halkaana oo waxa la yiri hotel Xamdi markaa maraysi darbiga isku lulul hadii kale snaabar ba halka saaran waa ku dilaya marka wali waa taagan yahay taangigi waana ridaya xabadii
marka Amnesty International waa qoreen satellite-kooduna waa sheegay madfac dhacay meeshuu ka dhacay ciduu ku dhacay marka taas muran kama taagna sax weeye khudbadii ugu dambeysay ka qora ahaan waa kii musabixi labadii golo uu la hadlayay dabcan labadii golo waxaa weheliyay dumar iyaguna durbaano iyo mashxarad mataqaana iyo halka goob saxaro ka saabinayay hadaladii uu soo qaatay waxaa kamid ahayd yani in horumar iyo adeegyo bulsho badan laga fuliyay magaalada Laascaanood adigu ka qora ahaan markaad magaaladii ku soo wareegtay waxaan u meenay in ka badan 48 saacadood baad joogtay wixii uu sheegayay Muuse wax ma kaaga muuqdeen wallahi niyo aniga runtii meel madaxtooye halka ku taalo waa la tusay oo la yiri waxa iska lahaa Somaliland dawladda hoosena waa jirtaan u maleynaya waa ka horeysay madaxtooyadu ma waa ka jeedaa tan galbeed ku taalo uu leeyahay uu dhisay baad leedahay ganacsada Jabuuti baataalisay ma Jabuuti cid istaan uma qala laakiin halka wax lagu yiri waxa ku taalo madaxtooyadii Somaliland waxaan u qaatay inay iyagu dhisay laakiin hadda waxay sheegtay in Jabuuti uu dhisay xabsiguna waa dhisnaa korontadana dad waxaan maleeyaa dad shacab ah biyahana dad shacab ah caafimaadkana isbitaalku waa dhisnaan jiray hay-adana hadda wax ka qabqabta dadkuna isbitaalada waxa way intooda badan oo waxay ku tagaaniin lacagtooda ku tagaaniin marka ardaygii hadii uu iskoolkii waxbarashadii lacag ku bixinayo isbitaalkii lacag ku bixinayo fiiqii ama qashinkiina uu lacag iskaga bixinayo inuu la iskaga qaado oo iskaga nadiifiyo dawladdu maxay qabatay maxay kala qaban lahayd dawladdu waa biyo iyo koronto iyo nadaafad iyo caafimaad iyo infrastructure kaabayaasha dhaqaalaha inay dhisto intaana meesha kaba muuqato si wanaagsan shalay oo kale waxa la soo dhaweeyay isuduwihii wasaaradda waxbarashada gobolka Sool eray uu yiri nin isna maaqila ayaa waxay ahayd waxa ku soo dhawow mudane macallin ardadaadii oo ku jirta xabaalo wadareed iyo intii noolayd oo tuutaha iyo qoriga sidata waxaan filayaa inaad daawatay marka sawirkii aad ka sidatay ama aad ka qaadatay magaalada Laascaanood intaad ku wareegaysay iyo goobihii lagu soo wareejiyay iyo ereygaasi hadda bal sudu wallahi hadda waxa weeye waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa fiqi bahdiis kama janna tago Soomaaliduna waa dad qabaa'ila weeye marka adiga lagu dilayo waa inaan anigu ka dhiciya marka aan Hargeysa joogo oo aan for example in Isaaq dagaalano nin kale Isaaq dhahay wariya edab yeelo meel fariiso xamarna sidoo kale meel walba Soomaalidu joogtana hatta gudaheena markaynu nimaano waa sidii basasho kala dirdiirmaya qabiil ku kala dirdiirmaya maanta marka iyadoo caruurtaadii la duqeynayo oo dadkaagii la duqeynayo magaalada la duqeynayo in dhulbaante waxaan maleynayaa hadda awal ma jirtay kala oran jiray aad bay ilbax u yihiin laakiin hadda waa naga horeysaan baan u maleynayaa kan dadka degan dhulbaanta kaliya SSC baa la isugu soo ururiyay SSC hal isugu soo ururiyay majority-ga 90% markaan ka hadlayno marka laakiin wali way jiraan baa la yiri kulay ama golaha dhexe ku jiraan ama baarlamaanka ku jiraan ama ciidanka ku jiraan dad dhulbaanta oo dhinaca Soomaaliland inkastoo tiradoodu la ii sheegay in aad u yar tahay oo wali in cambaashay baa la ii sheegay wali maaragtay in la yiraahdo anigu ma aqaano magaca miyaa lagu sheegay dadka xagga u shaqo taga dadka deegaanka u yaqaaneen mid garanaysa كل مقعية بدن بهذا أفصالي كوسو كردي البانتو قلص بان مقلاي وجيس أورجل وا مقلاي أورجل وا فالوين بدن بالجنبي فالوين بدن بالجنبي حتى شيء قوموا لو وحكوا شيء جاي كليتو ومقلاي مركا وحيابها هذا مركا دجاري ماذا waxba ku soo kordha hatta Soomaaliya wax ku soo kordha waddankiiba wax ku soo kordha dhaqanka hore ma noqonayo oo hadda magaalada markaa dhicmarta xal oo dhan xabadaan maqlayni kuwa wax la yiraahdo maxay xabadu yihiin bari markaas daroon Soomaaliland soo dirtay baa la tooganaya baa la ridaya kuwa waxay lahaayeen waa meeshan waa nin ba qori cusub helayo tijaabinaya inay u dhacayeen kaleeto marka xabadu waxa socoto moralka dadka kulli waxaad ku aragtay shacabku in kastuu magaalada ku yar yahay askarihii baa jooga dadkii adeegyada kala duwan qabanaya caafimaad ha noqoto ayaa jooga marka dadka la sheekaysatay moralkoodu siduu yahay ku dhaqan Laascaanood wallahi moralku waa fiican yahay laakiin hadda maanta mar baan isku sawiraynay taaladii shuhadaada gabar baan noogu timi waxay tiri
joojiya sawirka gala dagaalka kelmadaasi way socotay gala dagaalka dagaal meesha laba baan bay tiri masawir marka waxaan nidhaahno marti baan nahay meesha waa isku sawirayna adeer dagaalkana waa qaybteeda maan ka geysan doonaa iska kaayeedaa marka dadka moralkoodu dhinaca dagaalka inuu jiro iyo sidii ciidamadan dul fadhiyay isaga kicin lahaayeen inay weliba u bisubisoonayaan inay maaragtay isweydiinayaan maxaynu waqti badan u luminaynaa baa ii muuqata marka la weydiiyo kolley aad noqotid oo lagu weydiiyo reer Laascaanood bulsho ahaan iyo shacab ahaan iyo soo dhawaan ahaan waa sidee inkastoo aadan iman magaalo dadkeedii wada joogaan intii aad kula kulantay heerka qaabilaadoodu ama dareenkoodu ay qofka yimaada meel kastoo ka yimaada Soomaaliya ay muujiyaan sidee bay kula muuqatay والله حتى مقالة ومقالة صومالية وأنا بوزاسة تقول لك تيجي مدونة تقف فضها يات هاي حاجة تبي ده مرت منا مجرته ده ما أنت أنا ماشي هرتيبة كلنا شلون بين هالكاسان تجنيه إذا ما نقول تجنيه ديش شيء هاي وكلوا على السبارة وهو تجنيه هو رحمود بين هالكوي اللي يجي شيء جاي اسمه رحمود كي واحد جو جنب بالي الفيديو دين عكالي فديانين ولا كم مقام ما أنت مجرته إذا ما مركب مقالة واحد أول بدنا هذا نحن مورينا يا وعيد مو وإلا يرعي ريسا وعيد مو حفظها قريها وصوم مري بقول كي بس عشان يسجل قريها ولا جم مقيه وضدك مالي عرور أركي ميسد إن مر دفاع عنه يرأكتد معنا أركي ميسد عرور أركي ميسد هو يدي لا صعدها يقول هوتيل دقن وأنقول دقنين مركا ماشان وحوين باك دعي مقالنا وحوين باك دعي ورينا ويتاجن تاي رنتي إن شاء الله نحن رجينا إلهي وكا سيدا هو الأقصى بدن وغصا مهنة دي قرآنيمو سنوفينيمو أقوينيهانيمو طبعا مركا اللي يرادو محمد سعيد كشويتو وحو آدي مقالة هبلة والله قرانا يا قصدك أولي هاي مركا اللي يمادو قفكو بوقشا قارو وبحين كرا لكن قراغا ولا يقانا انت بدن هولو ورقدقاقو هذا السفر كاغاني محو دارنا والله سفر كان سو دارنا أنا waxaan qoray book baan qoray marka xog ururin baan sameeyay waa ku sheegay marka xog ururintii baa Laascaanood la soo gashay aanu nin qormi laakiin waxaan nin qalin baan ahay marka waa hawshaasina wixii aan halkan u imi waa ii qabsoontay waan oran karaa insha Allah 100% aan u mahad celinayaa dhammaan intii igala qayb gashay ama gacanta iga siisay oo idinku ugu horeysaan لكن نين ديار صبر هذا كان حكى الكاسي هو قاعد أركيني أتصورتي واحد مود السنين ده شوقي لاسعانودو ما تقانا معني والبقي هبين والبوحي داعي يقفكي هلا بشيء سيدك هو صورة قشنا حاجة ورسول والله الله بقي بس ولي بوق مقع مسمين رنتي من لاسعانود ما نسكي قوري من جوج عدان نسكي قوري لكن وحل بوق بيسكونوا قنيا كان مركا كان وحكو قرن wixii dhacay muddada hadda dagaalku socday wixii sababay wixii ku dhintay wixii ku dhaawacmay wixii international community ka yiraahdeen wixii Somaliland lafteedu ka tiri Puntland maxay iyagu fikir qabeen garaadadii hadlay hadaladoodii oo dhan iyo cid walba hadashay muddadii hadda aanu dagaalkaani u socday marka goobatan baa ugu caansanaatay oo gooja cadde oo hadda moodaa baraha bulshada in magacaasi aad u qabsaday marka karina waa taariikh hore oo isagana wuxuu ka sheekeynayaa 1530 ilaa 2023 wali hadda de waa haybtoodii sida dhaqnaayeen iyo dagaaladii ay soo galeen xataa kuwa dhexdooda iska ka dagaalameen oo dad badan iskaga laayeen baa jiray kuwa Somaliland iyo qabiilooyin kamid ah ay la galeen baa jiray kuwa majeerteenka laftigooda ay la galeen baa jiray waa taariikh weeye waxa ku jira marka aanu rajaynaynaa dagaaladii waxa ugu caansanaa daraawiishta oo kaleeto oo Sayid Cabdulla Xasan oo la oran karay hormuudkii bay ahaayeen daraawiishta oo la oran karo damage-ka ugu badan ama khasaaraha ugu badan ee nafeed iyo maaliyadeed wuxuu ka soo gaaray beesha dhulbahante hadda oo ay weli raadinayaan midnimada Soomaaliyana oo ay u muuqdaan inay yihiin cumta isku xiraysa Soomaaliya koonfureed iyo Soomaaliya waqooyi way hadda daadis way Muuse Biixi waxa xoog ugu dagaalamayo hadii cumtaani baxdo way ka goodo macna weyn ma sameynayso
hargeysa iyo burco iyo berbera intaad ku dhex jirtid qoraalka aan ka halkaas ka yar boobe qoraalka buuga kan hadeer aad subtitle-ka ama ciwaankiisii ku meel gaarka aad gooja cad u bixisay gooja cad hadeer iyada shidan oo magac mataqaana caan baxay laakiin waxay ku caan baxday waa dagaalada iyo colaadda daqiiqado ka bacda hadda jawiga iyo deegaanka lagu dagaalamayo way isbedelayaan oo meel kale oo ka soo caan badan ama ka magac badan baa hadday doonto soo bixi marka magaciisu isla bedeli maayo sida uu isla bedelo jawigu isu bedelo dagaalka maya magac weli umaba samayn baan ku yidhi buugga magaca weli waa weli wiisku saaran yahay weliba soomaalida waxaan ka rajaynaya ka baryaya ama ka codsanaya inay fikirkooda kusoo gudbiyaan magaca loo bixi lahaa waa magac inoo dhexeeya oo ina dhex yaallo waaye laakiin hadda qolfooftii baa weli buugga qolfooftiisi baynu haynaa foundationkii waa dhisan yahay adigu bil ama 2 biloodoo dambe naashnaashkiisii iyo habeyntiisii xogayihii la ururiyo dambe baanu gelin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka isagoo dhammaystiran baanu bisha agoosto ama setembre aan jecelnahay inaanu daabacno haddii ilaahay yidhaahdo dabcan marka aad magaalo timid writer qoraana aad tahay dad badan baad raadinaysaa oo la kulmaysaa oo weliba inta badan ay ku xidhan tahay mawduuca iyo topigaad markaasi wadid xiriirka uga taqaano qofkaasi uu la leeyahay muddadii aad joogtay magaalada Laascaanood yaad la kulantay oo magacaabi kartaa dadka yani aanka والله horta saaka ugu dambeysay garaadadii baanu is aragnay Allah xafido waxaan soo arkay jaamac kadiye waa soo arkay Xasan Dhiilood oo isaguna siyaasi ahaan jiray oo quraana ahaana waa soo arkay nin hal abuura ah oo aad qoraalka u sameeyo oo anigu aan lafahayga uga baqay oo la yiraahdo يوسف حسن la yiraahdo oo waliba xog badan oo aad u badan aan ka helay oo aan aad ugu mahad celinayo isagana waan arkay oo magaalada waa ku arkay saakan waxaan waan bixiyay meesha iyada buuhoodle kulay halkaas mudayna kaga maqnaan doona marka qolada voice-na waa la kulmay hadee waa ila shaqeynayseen Faisal Jaamac baan la kulmay suxufiyiintayda hore ka mid ahaa waxay dhibadhimay dumarka wali cid lama kulmin laakiin intaan maanta tagin waan jecelahay inaan aan qaar ka arka hadii la yiraahdo garaadii chance baad u heshay dabcan saadsan waliba iyadoo wada adag lagu jiro xaalad dagaal ka waran wajidooda iyo sida mataqaana maxaa ka muuqday dareenka suuha wallahi tan niman meesha muddo fadhiyay bay ahaayeen iskala qabsaday jugta iyo jacda iyo xabadda iyo madfaca niman jixinjixaya ama baqaayana igama muuqan niman daily meeting kooda samaysto oo maalin walba wixii cusub ka wada hadlaaya na waa ila muuqdeen marka niman uu hadda kulay beeshi isku dubariday haday awal kala qaybsanaayeen hadda hal qol ku wada shiraayo ay ku midaysan yihiin beeshuna qabiilka liyaado dhul bahantaha ama fiqishiniga ama dadka dhulkaan degani waa dad badan oo intaasoo de garaad baa ka garanaysaa 17 garaad iyo 20 meelahaas waay in ay meel isugu tageen wax sahlan ma wax sahlan arrin sahlan ma marka hawshooda way wataan waana fiican yihiin aad bay u fiican yihiin moral fiican waa ku soo arkay marka uu meel dagaal ka dhaco kulli waxa weeye dib iyo mashaakil baa yimaada saasoo tahay misana dhanka kale dadku waxay oran karaan hadda positive-na way keeni karaa ay colaadi way keeni kartaa colaadu lama oran karo oo kaliya waxay keentaa kul uu qofku dib u yaqiinsado wixii ka khaldamayna marka laga yimaado dhibaatada Laascaanood soo gaaray dadka ku dhintay labada dhinacba maxaa soo oran kartaa baa positive ah oo ka muuqda oo marka dhanka laga hadlayo dadka reer Soomaaliya sanaaga maxaa positive ah wallahi niyo horta dad badan baa dhintay waa ku jiraan labadan buugba waa ku jiraan dadkii hore iyo dadkii dambe dad yar ma aha ama madaxa lagu dhufto hal la jabiyo wax dilaha la garan waayo ama dagaalka ha ku dhintaan iyo madaafiicda iyo duqeymihii runtii waxaan oran karnaa khasaare nafeed oo aad u ballaaran inuu mujtamaca ka soo gaaray laakiin de qof walbana de maalintaas uu horta dhiman lahaa oo kullu nafsin daa'iqatul maut waa yarahay iyo waa weynahay iyo malaka mawdku ma yaqaano kuwa dambana waa dhiman doonaan sida hadda muuqata oo xilli waqtigoodu galay oo waa dadku de waa wada joog weeye naftu meelay nala gaarayso ilaah baa garanaya laakiin waxa ka abda ah dadkani waxay aaminsan yihiin oo ay ku adag yihiin inay helaan maamul hadday shalay dad hoos tagayeen inay maanta iyagu noqdaan dad isu taliya taasaa wax weyn ah
marka taasaa waxay tahay wax lagu farxo mar hadduu qofku yidhaahdo dee anaa gurigayga maamulanaya haddaa cunugaaga adigu haddii ama gabadhaada lagaa guursado wiilkaaga guursado dee adigu ma dhahaysid biilkaan idin siinayaaye baradho iyo basal iyo baasta maanta ku qadeey berina beriis caanala ku qadeeya ma oran karaysid oo kaa maqli maayaan marka dee nin dhulkiisa kuma xukumi karaayo hadduu qofku rabo inuu muqdar noqdo cid u diidi kartaa ama hor istaagi kartaa ma jirto marka laga hadlayo rajada laga qabi karo in ay nabadi ka dhalato deegaanadan sool sanaag iyo cayn oo ciidamada tan ay kala baxaan markaad eegtid hadallada kasoo yeeraya galbeedka iyo halkii laga maamulayey ee somalilan ee golayaasheedu maantii dhaweed kula hadlayey muuse bixi hadalladii kasoo yeeray iyo dareenka dadka kan iyo ismadan hogaanka dhaqanka ah ee aaminsan in lagu soo duulay xaqna u leeyihiin ayaduna ka taliya boqolkiiba intee baas leedahay ayaa la oran karaa waxa weeye nabad waxa weeye way dhowdahay ama la oran karaa nabad ku imaan mayso aragtida ay aaminsan yihiin ama ay kala aaminsan yihiin labadaba والله horta de walaalaha waqooyi waa walaalaheen weeye waa shacab Soomaaliyeed weeye waa shacab waliba la isdhalay oo wax walba la wada yahay anigu waliba asxaab badan baan ku leeyahay marka dhinac walbana ma rabaan labada shacab midna ma rabo in wax kale ay sii socdaan laakiin waxaa jira de raggan siyaasadda falkiya iyagu inaga waxayna ka qarsoon baa jira dagaalankan uu ugu adag tahay xukuumadda Soomaaliland ay ugu adag tahay waxayna ka qarsoon oo riixaya baa jira markee waxa la yiri ama caalamku yiri ama waxgaradku yiri ama odayaashu yiraahdeen ama qolooyinka reer waqooyiga siyaasiyiintooda dadkooda waxgaradka ay yiraahdeen war ciidamada meesha ka soo saar after that hal wada hadlo sida kaliya nabadda ku imaan kartaan aan wax qaba inay taas tahay inay sidaas tahay baan aaminsanahay laakiin anigu ma gacanna ma ka geysanayo mana taageerayo in labada shacab ee wada noolaan doona mustaqbalka fog hadeerna wada nool inaan dhexdooda nidhaahno reer hebel baa waxaa sameeyey taana bahda SSC oo dhan baan ugu baaqayaa inaan la fogeyn dadka shacabka ah ee gobolada reer waqooyi ee la ogaado system inuu waxa kan ka shaqeynayo oo aysan dhiman walaalnimadii oo aysan adkaan in la wada daaqi iyo naqi waan ognahay Soomaaliya abaarta ku badan marba meel baa loo dilaamaa bari bay noogu yimaadaan reer waqooyigu gobolada bari bay yimaadeen abaartii hore tantii ka horeysay sidoo kale kuwii anaga abaarta naga qaxay way galeen xagee galeen marka naqi waa la wadaagaa dhulkii waa la wadaagaa dadku waxba la isu wada yahay laakiin colaada shacabka dadka hurinaya waxaan qabaa in la joojiyo laakiin loo ogaado war waxayna ka qarsoon oo siyaasiyiintu ay micna bideen ama shidaal ha ahaado ama qandaraasyo kale ay soo qaateen ha ahaadeene inay jiraanin taasaan qirayna dabcan waxaan rabaa inaan ayaamihii dagaalka dib u noqdo insha Allah bidnillahi alkariim meesha marka hadda xilligan waxa dagaalamaya waa system dawladnimo markaas soo sheeganaya waxay doontaa caalamku waa amsanaadeen iyo dad shacab ah oo ku dhaqan deegaan oo iyagu leh nidaamkiini yani dulmi baanu ka sheeganay kuma jirno markii hore maanu aaminsanayn mabda aad u wadateen dagaalku wuxuu leeyahay nidaam loo dagaalamo marka laga hadlayo akhlaaqiyadka islaamka iyo ka aadanaha markaas barbarigtid shabahad ku sheeg dadka deegaanka dagaalamaya hargeysana system ku sheeg iyo maad oranaysaa baa wax xeeriyay marka laga hadlayo qaabkii loo dagaalamayay والله horta anigu meesha ma joogin laakiin aafaartii dagaalka markaan arkay de xagga shishana anigu ma tegin oo niman waxa kor waa la iga tusay halka gooja cadaal yada la yiri waxa ku jira dhufaysyo tigniinka qoryo baa soo muuqda laakiin aafaarta dagaalka markaan arkay wixii meesha ka dhacay magaalada ka dhacay wax qurux badan ma ahayn de waa la garan karaa marka system iyo dad shacaba oo banaanbaxay oo dhagax tuurayay iyo system xabada haystay inay markii ugu horeysay ay isku hor yimaadeen ka bacdina halka ay fidnadu ka dhalatay ka bacdina madfac la soo tuuraaba inuu guri ku dhacayay baabuur ku dhacayay qof ku dhacayay wax cad weeye oo aan cidina inkiri karaynin marka maxaynu wax la isbarbar dhigi kara maaha nin 30 sano muruqaysanayo jim ciyaarayay iyo nin shalay socodka bartay haday yiraahdaan ha dagaalamaan te ka yaro socodka shalay bartaa lagu durdurinayaa laakiin haddana saas way tahay lagu durdurin kari waa lagu durdurin kari waayey baashi soo adkaatay habdhaqankana
كل هذا أنت المجال هذا جوجي كل عيد لا دباتينايو أما لو حينايو ما أنا عرق حاجة هالشيء سمعت جنان صور كمركز ميديا اللي جالس يديني واحد محابيس تتكدجان كوهيان يا محابيس وسيستم كقبطي مقالة ودنا لسوق جريني أربعين ما دركتي محبوس هل كان لقاه هيو أو أما ترسانة يا تعذره أما دباته أما دل وكم القضية ما كلا بربر لقاه حاجة سيستم كان والله horta hadda maaha markii ugu horreysay maxaabiis la kala qabsado dagaalkii tukarraq waa lagu kala qabsaday labada maamul oo Soomaaliya Puntland baa ku kala qabsaday waagana waa la isdhaafsaday maxaabiistii kulli dhibaato labada dhinac waxay dhiibeen maxaabiis qurux badan runtii waan ku ammaanayn markii hore haddeerna waxaan rajaynaynaa maxaabiista SSC hayso anu wali ma arag laakiin in si fiican loola dhaqmo kuwa Somaliland in si fiican ay Somaliland loola dhaqanto labada dhinacna waxaan ka maqlayaa hadallo ah wanaag haddeer ilaahay hadallo wanaaga baan ka maqlayaa marka waan rajaynaynaa in de qof la qabtay oo maxbuus ah xor ma aha qofka duusan xor ahayn waa shimbir shabaq lagu riday na kama bixi karto marka de xuquuq buu leeyahay xuquuqda ilaahay siiyey oo inaga maskaxdeenu ina siisay oo shuruucda inoo ku qoran in sida yihiin in loola dhaqmo waana rajaynaynaa in labada dhinacba ula dhaqmaan marka de maxbuuska la qabanayo way iska imaan kartaa askartu inay ku xoomaan dilaan jujukeeyaan qaarkood ba la dilaba hadda waa la sheegay kuwa la dilay iyagoo la qabtay la dilayna waa la sheegay oo labada dhinacba waa la sheegay marka taas waxay ku xiran tahay wacyigelinta ciidanka marka horeeto goobaha dagaalka loo diraayo in sida loo wacyigeliyo labada dhinacba inuu wacyigeliyaan si wanaagsan ugu dambeyntii waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo kelmadaada ugu dambaysa maadaama la saacana soo gaadhay qorshaha u socotayna uu ahaa qoraal oo ah mihnadaada inaad wax qortid waxna curisidaad maxaad oranaysaa markaad ku noqotid hadeer yani sawirkii aad ka haystay dabcan muuqaalkii la saacanood iyo sida xoog socdeen waa la socotay laakiin wax ku cusub oo kugu soo biiray intii aad halkan timid oo hadhow la wadaagasid ehelkii dadkaad ka timid ma jiraan والله حق بدن وان هيا معلومات بدن مساحديد waa ku sawiray waxana de idinka ba sawirayseen isbitaalka kale aan tagnay dhibaatadii gaartay waxaan tagnay meelaha xaafado wixii khasaare ka dhacay waa soo aragnay guriyo dhan oo haawanayo oo gubtay baabuur gubatay shaariciyadii oo eber ah magaaladii oo ciidan uu guureynayo oo isgaala baxayo dadkii shacabka ah oo magaalada ka maqan iskuuladii aan furnayn goobaha caafimaadka laftigooda wali ka baqaayay in lagu soo rido madaafiic kale waa iska aragday agaasimi waan weydiiyey kulay waraysi baan ka qaaday waad haysaaniin marka yeelkeeda sidii loo jabay bay Soomaaliya looma dhutiyo waa fiican tahay magaaladu ammaanna waa tahay anu labada habeen aan joogay magaalo ammaan ah oo aan cid duganaysaa jirin oo waxa laga sheegayay iyo argagixiisa joogta iyo cabtooy baa joogta iyo kanaha jooga iyo qabrada lagu gaday gabdhaha lagu kufsaday gabdhuhu boqolkiiba hadeer 3 maba joogaan gabdhaha boqolkiiba 3 kama badna gabdhaha jooga marka wax dhibaato ah oo magaalada ka dhacday oo gudaheeda ka dhacday oo dadka isu geysteen waxaan qirayaa inaysan jirin hadiya aad baan kaaga madcelinayaa maxamed Saciid Kaashawito booqashada aad ku soo gaadhay la saacanood iyo buugan aad qoraysid insha Allah waxaan jecelahay kulankaaga dambe aad buuga ku soo badhaysidna in telefishinka caalamiga ee VOS uu goob joog hado bidni lahalkeen insha Allah aad ku salaam